halka kan aanu joogno waxa weeyaan waxa ku dhan beelaha Soomaaliland ka soo jeeda madax dhaqameedkoodii iyo xildhibaanadoodii iyo senataradoodii iyo gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi dhammaantay waxaanu halkan u nimi inaanu u sheegno u cadayno ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo daneeyayaasha doorashada Soomaaliya arrin qaadan waaya oo nala kulantay oo nagala kulantay oo ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waxa weeyaan run ahaantii doorashadu waxay noogu socotay si habsamiya odayaasha dhaqanku markay keenaan xubnahoodii waxay imanayeen guriga Cabdi Xaashi aanu isugu imanaynay waxaan noo imanayay guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed waxaan noo imanayay labada mas'uuliin ee siyaasiyiinta Mahdi Maxamed Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxaanu isla feenaalas garan jiray qaabka doorashadu ay beeshu u gelayso ee xildhibaanadeeda u soo dooranayso maalmahan beryahan dambe waxa dhacday awoodihii oo dhan waxa la wixii aanu gudbinay beelahaan u gudbinay xafiiska ra'iisul wasaaruhu inuu isu bedelay waxaan maqli jiray Muqdisho wax ka jira wax leedahay Cabdallah Shideeye xafiiskii filla Soomaaliya oo la sugayay hufnaan iyo sharafta Soomaaliyeed meeshii lagu ilaalinayay inay noqoto meel foojariga laga sameeyo xafiiska ra'iisul wasaaraha gacantiisa guddidii komishinka heer maamul goboleed hal qof tala kuma leexataa guddoomiyihii guddidaas ayuu ka haystay wuxuu la tagay xafiiskiisa wax alla wax ay ka og yihiin kuraasta hadda dhegan ee uu soo dhajiyay odayaasha dhaqankuna waxba kama oga beelihii wax kama oga siyaasiyiintii waqooyiga ku metelayeen wax alla waxay ka og yihiin ma jirto guddidii doorashooyinka heer maamul goboleedna waxba kama oga marka laga reebo inanka guddoomiyaha waxaan leenahay aanu cadaynaynaa cid walba doorashadii inaanu faraa kala baxnay inuu maamulanayo ra'iisul wasaaraha waxa ku gadaaman waa ayaan daro inaanu golo wasiirrahay la shaqaynayn inaanu qaab hannaan dawladeed oo hufan oo sharfan aanu lahayn afar ardaaga reerkiisa ah cunsur afka lagama dhowro in habar gidira ayaa ku xeeran cid walba waan uga ergoonnay odayaasha dhaqanka beesha markaanu arki weynay dawlad lala hadlo oo mace iyo madax leh oo lala hadlo markaanu arki weynay beeshiisii baanu la ergoonnay waanu ka weynay wax erga qaabila waxna ka qabta arrinka 2 bilood baanu cabasho qarsanaynay waayeelnimo ku wadnay wax walba xeerinaynay way dhici weyday salaajligeed madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo doorashada san habsami socodkeeda door weyn ku leh waxaanu ka codsanaynaa inay joojiyaan arrinkaas soo farageliyaan ra'iisul wasaaruhu ma aha nin mas'uuliyad khibrad dawladeed leh xafiis dawladeed ka soo shaqeeyay qaab dawladeed u shaqeynaya lagu hadlayn karo mas'uuliyadda dalka iyo doorashada qaranka waa mid khalkhal gelinaya waxaan leenahay gacanta ha laga qabto international community-guna ha soo farageliso arrinka haddaan nahay annagu dadkii arrinka ay khusaysana doorashadii halkaasaanu ku joojinnay waxa halkaa ka soo baxa oo walaaqanayaana waa xaaraan weeye mana aqbalayno mana qaadanayno aad iyo aad baa u mahadsantahay